mucaaradka wadani ayaa waxa uu ka hadlay hawada Soomaaliya lagu wareejiyay faafaynta warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Aydaruus Cabdullaahi Beershiya iyadoo maalintii shalay ahayd munaasabad si ballaaran loo agaasimay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ay ku shaacisay dawladda Soomaaliya inay magaalada Muqdisho u soo wareejisay hawadii dalkii la isku oran jiray Soomaaliya oo in muddo ah fadhigeedu ahaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya taasi oo maalintii shalay ahayd xariga ka jaray maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya xisbiga mucaaradka ah ee wadani gaar ahaan xogayaha duulista iyo hawada ee xisbigaasi Nuuraddiin Diini oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa waxay ka hadleen mowqifkooda ku aadan hawada lagu wareejiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo uu dhaliilo fara badan u soo jeediyay wasiirka hore wasaaradda duulista iyo hawada waxaanu bogaadiyay maareeyaha cusub ee hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Somaliland geesta kale Nuuraddiin Diini xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu sheegay in ka xisbi ahaan ay meel adag ka istaagi doonaan arrintaasi isagoona baaq u diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi wada dalkii la isku oran jiray 60kii Soomaaliya run ahaantii arrinkan waa mid soo noqnoqday xukuumadda kulmiye ee uu ka arriminayay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayana ay ku fashilantay shirkii hawadan xashada lagu dabaaldegay la wareegideeda magaalada Muqdisho taasoo uu furitaankeeda uu furay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay ahayd mid caqabad ku ah oo lafjab ku ah oo dhibaato ku aweeyay qaranimada Somaliland waayo dastuurka jamhuuriyadda Somaliland qodobkiisa labaad si aad wuxuu u qeexaya inay Somaliland xuduudaheedu yihiin kuwii 60kii Somaliland protector aha ee dawladda Ingiriisku inaga tagtay waa dhul bad iyo cirba intaas ayaa inoo sugan oo dhul ahaan aynu maamulna dal ahaan iyo dad ahaan hanti iyo asal aynu leenahay dalkeena muujinaysa inuu yahay haddii qayb kamida dhulkeenii ay Soomaaliya qaadatay waxaynu ka dhiganahay inaynu nahay maamul goboleed ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya 16kii bishii September 2017 saxaafadda Somaliland oo dhan waxaan u soo bandhigay in magaalada Montreal ee dalka Canada lagu la wareegay hawadii dalkii 60kii la isku oran jiray Soomaaliya taasi waxa beeniyay oo ummadda been cad u sheegay wasiirkii waqtigaasi ee duulistii hawada Farxaan Aadan Haybe isagoo markaasi safar kaga soo noqday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Farxaan been cad buu ummadda u sheegay oo wuxuu yiri war ma hayaan nimankan hadlayay waxaanu shirkad Turkiga oo terminaal loo dhisaysa ayuu heshiis la galnay halka waxa ka muuqata mas'uuliyad darrada maamulka iyo xukuumaddaasi iyo nimankaasi mas'uuliyadii uu qaranka u hayay ee uu sameeyay maareeyaha wakaaladda loo magacaabay duulimaadyada had anigu aad baan u bogaadinay waayo run buu sheegay oo wuxuu yiri arrintan waa la qaatay laakiin waa ka dib tagayna Farxaan wuu qiri kari waayay inta been cad buu umada xisbi ahaan anagu arrinta meel adag baanu ka taaganay si guudna waan uga hadli doonaa gudoomiyaha iyaguna uu ka hadli doonaa go'aan iyo bayaan waanu ka soo saari doonaa madaxweynaha hadda Muuse Biixi Cabdi runtii waxa weeye madaxweynaha halgamaya waa nin taariikhdii SNMna ku suntan maanta waxa ayaan darro u ah isagoo oo madaxweyne ah isagoo aragii dalkan xoreeyay in dhulkiisa qayb ka mid ah la qaato ayaan darrada ugu weyn isaga u taala waa taas ee uu waliba ka aamuso wixii shalay ka socday idaacadaha BBC-da VOA-da iyo telefishinada afka Soomaaliga ku hadlay Aydaruus Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.